السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال دمانتي كسو دوادا برو عالمك حلقة دي سي لحد تاسو أن مانتا ديرادا كسارينا ودنك أرجنتينا أما دولك قالنكا داودا فضلا هداد نغلا سعوتي دنك فيسبوك سوف لو قريه بقى برو عالمك سيدو كلا شير اوتا ومقال كان ولو ذاك أصحابته هداد نغلا سعوتي دنك يوتيوبنا فضلا صار سبسكرايب شيرنا ده سي أدو لو ذاك أصحابته هذا haddii aan ka hormarno calanka kalarada buluuga iyo cadaanka kuma fadhiyaan macno badan laakiin waxaa la dhihi karaa waxaa laga metelay cirka iyo daruuraha dhexda waxaa ku yaal calaamad la dhaho the sun of May ama ilaahayga qoraxda sida ay dadka wadankaasi aaminsan yihiin Argentina waxay ku taallaa koonfurta hoose ee qaaradda lagu magacaabo South America ama Latin America waxay daris la tahay 5 wadan oo kala ah wadamada Chile, Bolivia, Paraguay, Brazil iyo Uruguay waxay sidoo kale Argentina daris la tahay oo dhanka bari uga dhigan tahay badda lagu magacaabo Atlantic Ocean gudaha wadanka waxaa ku yaala 23 gobol oo kala duwan iyo caasimadda oo lagu magacaabo Buenos Aires oo ah ismaamul gaar ah sidee ayuu u egyahay dhulka Argentina waa mid ka mid ah wadamada ugu horeeya marka la eego kala sareynta kala duwanaanshaha qaab dhismeedka dhulka ama sida uu u egyahay dhulalka kala duwan ee wadankaasi waxa la yiraahdaa diversity of landscape waqooyiga dalkaasi waxaa ku yaala kaymaha roobka ee loo yaqaan rainforest iyo dhul cagaaran oo kulayl ah gudaha iyo bartamaha wadankaasna waxaa ku yaala dhul daaqsimeed aad u ballaaran iyo buuro gaagaaban dhanka galbeed waxaa ku yaala buuro dhaadheer midda ugu dheerna ay tahay buurta Aconcagua la dhaho taas oo sidoo kale ah buurta ugu dheer dhammaan qaaradda South America xagga bariga waxaa laga helayaa xeebo qurux badan iyo dhulka laga qodo macdanta ugu dambeynna dhanka koonfurta waxaa ku yaala saxaro leh cimilo qabow haddii aad sii aadid cirifka ugu dambeeya ee koonfurta dalkaasi waa meesha bariga ama dhulka uu ku dhamaado waxaana halka laga helaa qaaradda cajiibka ah ee lagu magacaabo Antarctica oo ah dhulka adduunka ugu qabow haddaba daawada waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid maxaa Argentina loogu bixiyay dhulka qalinka sababta uu guumeystay Isbaanishka u yimid dhulkan qarniyadii 1500 ayaa waxay tahay wuxuu guumeystahani ku tuhmayay dhulkan inuu ka buuxo qalinka ama maadada loo yaqaan silfarka wadanka Argentina wuxuu sidoo kale qani ku yahay macdanta kala duwan sida zinc, copper, lead iyo boron Argentina waa wadanka saddexaad ee ugu soo saarista badan maadada boron marka laga soo tago Turkiga iyo Mareykanka Argentina waxaa ku nool dad dhan 41 milyan badi shacabta ku nool wadankana waa dad soo galooti ah waxaa la yaab ah in dadka ku nool Argentina ay yihiin inta u dhaxaysa 85% ilaa 95% dad European ah ama dadka ka soo jeeda qaaradda Yurub kaliya 2% ayaa ah dadka asal ahaan ka soo jeeda dhulkan 9% waa dad iska dhal ah Argentina waxay ka mid ahayd boqortooyada Isbaanishka ee ka talinaysay qaaradda Latin America markii ay boqortooyadani ay dhamaatayna dagaal ayaa ka dhacay wadankan waqtiga xornimada kadib Argentina waxay dagaal la gashay dhammaan wadamada iyada dariska la ah marka laga reebo dalka Uruguay saaxiibada ugu dhow Argentina ay leedahay waa wadamada Uruguay iyo Talyaaniga Uruguay waa wadan ay wadaagaan dad iyo dhaqanba Talyaaniguna waa dal shirkadihiisa ugu waaweyn ee xarumo ku leeyihiin gudaha dalka Argentina hamoogaan waxa inoogu xigi doona dalka Armenia We'll be right back.